السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خالق ميل والبادوق كجوتان waxaa kusoo dhawaatan channelkeena Adam Show 2. hornaati farxad weyn ayay noo tahay inaad muuqaaladeen daawatan anagan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaan soo gudo muuqaalo aad iyo aad u faa'iido badan. insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa xalqadii 12aad ee barnaamijkii ahaa tababarka macalinka Higaada ka faa'iideysta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale muuqaalka insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa hamzatul wasli kayfiyatu ta'liimi hamzatul wasli aan qaadan doonaa insha Allah maanta marka ugu horeyso hamzatul wasliga calaamadiisa waa tana calaamada hamzatul wasliga waxa waaye waa alif iyo yani calaamadan waxay ka imaaday wuxuu ahaa kooda hore saad oo dabada laga jaro waaye saad oo hoos laga soo jaro waaye intaan ayaa soo hareys marka quraanka yani kitaabka quraankan uu ka buuxa hamzatul wasliga dadka badankoodana maxal lahayo ma fahmayaan ma yaqaanaan ardaydana maxal lahayo badankooda ma fahmaan hamzatul wasliga marka hore calaamad ama maxal lahayo yani malahan xaraka malahan marka cunuga baraysidna kitaabka quraanka soo qabo ka tus quraanka soo qaad ka tus meesha hamzatul wasli inuu meesha ku jiro oo laga rabo inuu akhriyo kitaabka ka tus marka hamzatul wasliga xaraka malahan kordhigaal ama hoosdhigaal ama godaal malahan waxaan laga rabaa ina akhrisin waa laga rabaa xaraka malahan ina akhrisin waa laga rabaa salo akhrina marka waxaa jirto qaacido ama wado oo lagu akhrin karo yani hamzatul wasliga cunugana maxal lahayo waxaa loo baahan yahay in asaas aad ku fahansid ama asaas ina u bartid qaacidada waxaa waaye hamzatul wasliga waxaa la fiiriya hamzatul wasliga yani kalimada hamzatul wasliga wadata waxaa la fiiriya mar walbo markaa rabtid inaad akhrisid hamzatul wasliga waxaa la fiiriya xarafka saddexaad la fiirina hamzatul wasliga maalan waa kana xarfaha ka dambeeyo ilaa iyo asii kasoo bilaabo xisaabta 1 2 3 xarafka saddexaad aad fiirinaysaa xarafka saddexaad hadduu godaal saariya hamzatul wasliga waxaa loo akhrinaa sidii u camal loo akhrinaa u ayaa la dhahayaa okay xarakada meesha kama muuqanayso laakiin markaad qaacidada aad raacdid oo xarafka saddexaad fiirisid xarafka saddexaadna uu godaal saaran yahay hamzatul wasliga waxaa leedahay u ayaa leedahay haddana mar kale xarafka saddexaad haddii uu yani hamzatul wasli waa kana xarafka saddexaad hadduu kor dhigan yahay ama uu hoos dhigan yahay hamzatul wasli markaas waxaa leedahay sidii waxaad u akhrinaysaa camaleed u akhrinaysaa camal ayaa dhehaysaa marka kaliya hamzatul wasliga loo akhrinayo waxaa waaye hamzatul wasliga markuu wato markuu la socdo yani maxaa lahaye alqamariya iyo alshamsiya markaas ma fiirinaysa xarafka saddexaad al fiirinayo ma jirto على طول وحواي همزة الوصل لام قمر لام شمسية مولا صعدة يا اسكلية يا لنا همزة الوصل هدو لحظة قالوا إن الأخير هديبه همزة الوصل لقى هرمرو لما أخرناه مثلا كان عمل فيرسو همزة الوصل واكرة لكن إنت لقى الجرا لما أخرناه مثلا سيدا يعني أريج وحوها سيدا أنا يوها كود هوري أريج وسيدا واي هدو كان وحلا حرس ده هذا الفيرنا وحلاها ادعو ayaa dhahaa laakiin hadii bal ka war ka soo hormariyo xaraf kale hada ka soo hormariyo hamzatul wasli ka war hamzatul wasli ma la akhrina may lama akhra hamzatul wasli hada wuxuu dhaxdo hamzatul wasliga haduu dhaxdo galo lama akhrinayo wuu dhacaya laakiin quraan waa la qoraa laakiin akhrin lama akhrinayo hada kan sida uu akhriya waxa dhahaya wad'u wa ad'u ma aha lama dhahayo maadaama kan hamzatul wasli uu yahay dhaxdana uu galay lama akhrinayo seedaha marka xarafka ka horeeyo waxa isku qabanaa xarafka sukuunka saarna isku qabanaya waxa leeyahay wad'u ayaan dhahayaa marka qaabkaas ayaad maxalla canuga ku bari karta maalinta koowaad waxaad bartaa ardayga yani maxalla hamzatul wasli iyo qaabka uu yaala bar iyo maxalla waxa bartaa marka hamzatul wasli uu la dhahayo maalinka koowaad indaas bar maalinka labaad waxa bartaa hamzatul wasli markii la dhahayo maalinka saddexaadna waxaa bartaa hamzatul wasli markii la dhahayo bar maalinka afraadna waxaa bartaa hamzatul wasliga hadduu dhexda soo galo inaan la akhrinaynin bar canuga hamzatul wasliga hadduu dhexda soo galo inaan la akhrinaynin qaabkaas ayaad maxal lahayo canuga aad maxal ku fahansiin kartaa waana qaabka ugu fudud waa insha Allah ilaah waxaan ka rajaynaa inuu idinku anfaco darsigeena maanta intaas oo ku egahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh